madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waftigii uu hogaaminayay ee safarka u kuurgalka xaaladda abaaraha ku mariyay gobolada bariga Soomaaliland ayaa gaadhay deegaano tiro badan oo hoos yimaada gobolada Togdheer iyo sidoo kale Buuhoodle. madaxweyne Axmed Siilaanyo oo ay safarkiisa ku wehelinayeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, xubno kamid ah golaha wasiirada, eegas wasiir Soomaali, maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale kuwa degmada Burco, waxaana wafdidan ay cagta dhigeen deegaanada Inaaf Madoobe, Shashan Cadde, Qali Calanle, Taalabuur, Baledhiig, Qorilugud iyo Coodanle oo ah goobta ugu badan ay ku sugan yihiin dadka ay soo barakiciyeen abaaruhu. waxaana dhammaanba odayaasha iyo mas'uuliyiinta deegaanada aanu sii maraynay ay madaxweynaha uga warrameen xaaladaha abaaraha ee haleelay, waxaana ka mid ah hadaladoodii: dhibaatada haysata waa mid ballaaran, waxa Ilaahay baa inaga saari kara. baahida koowaad waa biyalaan, baahida labaad waa cunto, baahida saddexaad waa caafimaad, baahida afraad waa ama dadku waa dad soo barakacay. waad haratay weliga ahay, waad hagaajisay weliga ahay, ilaahay saasaa kaaga baryay. waxaan kaloo idinka warramaya xalay waxaan joogay Coodanle, dadkii horta waa kala qaxay, wax dhammaana yara maaha, wax Qorilugud bay u qaxeen, xooggiisii tanuu soo qaxay. waxaan ogahay meel dhow ilaa daraad waxa degay mala 400 oo reer. maanta waxay loo tahay maalin maalmaha ka tilmaaman oo ah maalin roob daay oo riga gubiya noo soo saareen oo dadku nimco kala degay way noo tahay calaashaan imaatinka madaxweynaha iyo waftiga ballaaran ee gobolada ka yimi dhammaantoodba waanu mahad celinaynaa. ilaahay baa mahadle waa u mahadcelin. annagu caban mayno, ilaahay wuxuu noo keenay ka caban mayno. dawladdana waa u mahadnaqaynaa oo waxaanu ku tabanaynaa ma jirto. baragshan bari baa la saaray ilaa meesha la yidhaah Dhoqoshay iyo wixii ka dambeeya oo ceelkanna u aanaa oo hawd ka xiga. waxa dadkii hawd iyo waqooyi iyo bari waysaga soo guureen, meeshii wax lagu jireen lagu cabbay dadkii. meelihii aanu soo marnay Shashan Cadde 20 booyadood baanu ku soo qaybinay, Qali Calanle 20 baanu ku soo qaybinay, Taalabuur 20, Baledhiig 30, Coodanlena ilaa adaymka 30 ayaa iminka lagu shubayaa. biyihii hore socdeen loogu talagalay sidoodii oo soconaya, biyihii hore sidii oo soconaya lagana joojin maayo. waxa kale oo runtii jira kumbuste oo loogu talagalay dadka dhaxanta in ay ka huwadaan oo iyaguna idin soo galayo idin soo socda. waxa kaloo ka mid ah hadda marka madaxweynaha iyo waftigiisu ay sii marayaan dadkan soo guurtada ee dhibaatadu haysato, gaari timir iyo kalluun iyo caano maraaci ah oo dadka gurmada. madaxweynuhu waxa arlada ka jira isagoo dareensan ayaa haddana uu damcay inuu idinla qaybsado oo la qaybsado dadkiisa uu mas'uulka ka yahay dhibaatada haysata inuu la qaybsado. madaxweynaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amrigiisa abaajiyo. wixii aanu tari karaynay awood ahaan guddida abaaraha heer qaran iyo guddi gobolba waanu tarnay, raashinna waanu keennay. iminkana raashin cusub baa u soo socda, biyihiina waanu u soo dirnay xalay, way soo socdaan, waddaday ku soo jiraan. insha Allah waxaanu filaynaa iyagana inay dhowaan soo gaari doonaan. dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye qaar ka mid ah wasiirada iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo la hadlayay dadkaasi deegaanada aanu sii maraynay waxay gaarsiiyeen raashin, biyo iyo ay huwadaan. waxaana ka mid ah hadaladii ay deegaanadaasi ka jeediyeen sida tan: waxaanu idin sheegaynaa walaalayaal, maanta Soomaaliland oo dhan baa gurmanaysa. kii galbeed joogay iyo kii bari joogay Soomaaliland oo dhan waa mid. dhibaatada Ilaahay keenay waa midaysan tahay. malaha dilo waa ka dhagaysateen siday ugu gurmanayeen dadkii halkaa gaaray dila ee xataa bustayaasha la wadaagayay. maanta dadku waa u midaysan yahay abaarta. ilaahay uun baynu baryanaa, ilaahay baa inaga dulqaadi karaa. roob baynu maanta u baahannahay soo maa saynu roobka u helo waynaynu dembi dhaaf ilaahay ula nimaadnaa. ilaahay dembigeenna ha dhaafo, raxmaadkiisa ilaahay ha inoo shubo. ilaahay ummadayadii way baahan tahay oo roob la'aan iyo abaar ayaa hayse, ilaahow naga furo. xukuumad ahaan waxaanu la hadhay ma jiro. madaxweynuhu markii duruuftaas la soo sheegay ee la xaqiijiyey wuxuu amray wixii hanti qaranku lahaa meeluu ka soo gooyoy in lagu biiriyo, in lagu taakuleeyo dadka abaaru tabaaleeyeen. waxa kale oo madaxweynuhu qabtay shirar waaweyn ganacsatadii waddanka ayuu u yeedhay
waxaanu ku gubaabiyo ugu baaqay inay dadka walaalahooda tabaalaysan ay taakuleeyaan waa u mahadnaqaynaa ganacsatada wixii deeq maanta bixiyey wixii abaarihii hore ee galbeedka bixiyey dadkeennu waa dad wax isa siiya waxay u socdaan in ay u kurgalaan oo arkaan xaaladda ba'an ee dadkeennu ay ku jiraan ee ay abaaruhu keeneen dawladdu waxa laaliya waxay ay qaban karaysay ee arrintaa ku saabsan way qabatay dadaal ballaaran bay gashay haddii ay tahay wixii iyadoo ay haysay haddii ay tahay wixii ay shacabka ku abaabuli karaysay in shacbigu kaga qayb qaato haddii ay tahay caalamka iyo hay-adaha inay waxay ugu baaqi lahayd waxba kale ma harin farxad weyn bay ii tahay anigii waqtigeela socdaba inaan idinka mahad celiya sida fiican ee wanaagsan aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan u soconnaa inaanu xogaal u noqonno xaaladda dadweynuhu qabo iyo abaaraha ilaahay naga jebiyo ilaa waxaanu ka barnay abaaraha ilaahay naga jebiyo inaanu dadka iyaga la qaybsanno oo aanu ogaanno waxay qabaan xogtooda ogaanno ka warsanno oo aanu annana wixii aanu qaban karna aanu qabanno waxaan idiin sheegaynaa howlaha ilaahayna waa ka baryaynaa innaguna insha allahu tacaala wixii aanu la hadhi karno waxaanu la hadhaynaa ma jirteen dadka wixii aan u qaban karnaba waan u qabanaynaa waan u dadaalaynaa meel kasta waa u galaynaa hawl kasta waa u qabanaynaa waxaanu tari karnaba waa yeelaynaa ilaahay nala qabto hawsha abaartana naga jebiyo qadar qayr qabana cirka hay naga siiyo waa cabdisalaan axmed cawad cabdi jermani bulsha TV burco